madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo saaka safar dhinaca cirka ah ku yimi magaalada Berbera ayaa waxa uu madaxweynuhu daafuray dhismaha terminaal cusub oo laga hirgeliyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera. dhismahan oo ah mid casri ah ayaa waxa maaliyadda lagu hirgeliyay ama dhismaheeda lagu fuliyay bixisay dawladda dalka Kuwait oo lacagta lagu dayactiray bixisay. waxaana dhismahan maanta uu madaxweyne Silaanyo daafuray ama xadhiga ka jaray ku baxay 4 milyan iyo 438 kun oo dollar sida uu sheegay wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi. waxaana ka soo qayb galay xafladda lagu daafurayay terminaalkan cusub wafdi ballaaran oo ka socday dalka Kuwait, madax dhaqameed iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horreyn waxaa dhismahan terminaalka cusub ah faahfaahin ka bixiyay wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo goobta kaga faanay in xukuumaddiisu ay qabatay wax ka qabadkii ugu ballaadhnaa muddadii ay Soomaaliland jirtay, sidoo kalena ballan qaaday in garoonkan diyaaradaha ee Berbera maanta laga bilaabo furan yahay dibna aanu u xidhmi doonin. waxaa kale oo wasiirku xuseyn garoonkan diyaaradaha ee Berbera uu adduunka ugu calaamadsanaa garoon ciidan military maanta laga bilaabana noqon doono garoon shicib oo si caadi ah ay diyaaradaha caalamiga ah uga duuli doonaan ugula soo degi doonaan. mashruucan oo socday muddo dheer oo waqtigii loogu talagalay dib uga dhacay sababo farsamo darteed bishii Sebtembar 2012 mashruucan la dhagax dhigay waxaa yidhi waqti hore dhamaaday. mashruucan waxaa ku baxay 4 milyan 438 kun oo dollar ayaa ku baxay. waxaa shaqadaa lagu qabtay terminaalkan aynu fadhino oo ka kooban 2,500 oo mitir square oo isugu jira qayb laga soo dego iyo qayb laga dhufo, oo isugu jira xafiisyadii oo la qalabeeyey, oo isugu jira musqulihii, oo isugu jira oo leh masaajidadii, oo leh wax kastoo terminaal caalami uu leeyahay oo aan ka dhigay flight. terminaalkaasi dunida terminaalada si go'an baa loo dhisaa, ninba siduu doono uma dhiso, way kala weyn, waxaa kala duwan ballaadhkooda iyo quruxdooda iyo wax lamida. waxaa mashruuca ku jira 11 kilomitir, lacagtaasi kuma bixin oo keliya aqalkan ee waxay ku baxday iyadana oo ka mid ah 11 kilomitir oo silig ah ama xaydar garoonkeeda ku soo dhacay, kaasoo xoolaha iyo dadka ka ilaalinaya. garoonkani wuxuu ahaa asset aynu dhaxalay, waa garoon loogu talagalay ilaa shaqaladu inay ku soo degaan diyaaradaha nuclear-ka qaada. waa garoon bayskiisu adigii shub yahay. 1972 ayaa dowladdii ruushku dhisay, maraykankuna waa uga dambeeyey. wuxuu leeyahay runwayga ugu dheer qaaradda Afrika. garoonku markuu yahay sea level iyo magaalo kale oo dheer uu kala duwan yahay waa sea level. qiimaha suulay laakiin waa maxay nasiib darro kale ahaysatay. wuxuu qorayay garoonkan ilaa maanta midowga madaxweyne mudane iyo marweye military airport. adduunka Google-kiisa iyo hay'adda duulimaadyada wuxuu kaga jiraa category ah military airport. sidii loo geliyay loogama saarin. siyaasadda xukuumadda madaxweyne Silaanyo ay ka leedahay garoonkan waxa weeye garoonkan inuu ka baxo military airport oo maanta laga bilaabo noqdo fully functional civilian airport. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland waxqabadka ay ka qabatay garoonka diyaaradaha Berbera, isagoo sheegay in horumarka uu yahay waxyaabaha ay xukuumaddiisu hiigsanayso, sidoo kalena ku dhiirigeliyay mas'uuliyiinta kale ee xukuumaddiisa ka mid ah inay waxqabadyo muuqda qabtaan. terminalkan aad iyo aad uu ahmiyad weyn u leeyahay dalkeena iyo dadkeena u leeyahay. waa mid qiimo iyo qaadana sidaynu aragno oo macno weyn inoogu fadhiya oo international ah oo qiimo weyn inoogu fadhiya oo wax weyn u soo kordhinaya dhaqdhaqaaqa iyo xarakadda duulimaadka iyo xarakadda ka soconaysa dalkeena insha allahu tacaala. waana midaynu ugu faanayno, waana midaynu ugu mahadnaqayno sidaa daraaddeed dowladda Kuwait iyo ciddii gacan ka geysataba insha allahu tacaala. marka waxaan leenahay dowladda Kuwait aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaynu ku dadaalaynaa innaguna inaynu xaggeena waajibaadkeena xil iyo inala soo gudboonaadaan inaynu fulino oo aynu qabanno oo aynu dadkeena iyo dadkeena wixii anfacaya xilkii wixii naga saaran aynu
intayna ka soo beegataa aynu iyadana aynu qabanno oo si buuxda u fulino insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsantay wassalaamu calaykum ugu dambayntii ayaa suldaan maxamed axmed ismaaciil bukhwaar oo ka mid ah salaadiinta gobolka saaxil uu isaguna soo dhoweeyey horumarka laga sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera xukuumadda madaxweyne Silaanyana uu ku ammaanay waxqabadyada muuqda ee ay ka qabatay gobolka saaxil bismillahi salaatu wassalaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam maanta munaasabada qiimaha leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada golihii dhaqanka bulshooyintii haweenkii la isugu yimi ee lagu furayo madaarka berbera international airport aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxqabadka xukuumadda maxamed Silaanyo ee ku caan baxday in gobolada iyo dalka oo dhan inay wax weyn ka qabato aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa munaasabadan halkan waa garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera oo ay ka muuqato dib u casriyeyn ballaaran oo ay ku samaysay dawladda Kuwait waxaana xadhigga ka jiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Somali Channel garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera